بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلي شرفت لكل أنتي ونكسنه عن ملك استدى دون كجوكتان إلهي سبحانه وتعالى دم بجيني دم بجوارد كنا دعفو برنامج كان وحن ربعنا وجه الله عدد نحدنت له معلمهن سوق الشيء وربعينته عدد ولا ليال سيدة دوكتهين وحكى عدي ملك من الصوماليا وحنا فالحن لوجيستي كبر صوماليات وأنا وحبق قلب سنين كبر ده ولا ليال أن دم بوين أيال جالي waxaase naxdin leh isla markii arrintan ay miidiyada soo gashay inay dad miidiyada ka hadlaan oo ay yaraystaan oo yiraahdaan arrintan waxa suubiyay wiilal yaryar oo aanan mataqaanaa fahansanayn social mediaha oo video iska duubay arrintan ayaa waxay tahay arrin aan loo dul qaadan karin waxaanse ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa inuu arrintan bannaanka soo dhigay maxaa yeelay walaalayaal dulmiga waxaa lagu hayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma ahan arrintan arrin cusub ma ahan maanta waa la duubay tan oo suuqa ay soo gashay laakiin maalin kasta iyo habeen kasta gabdho Soomaaliyeed ayaa la kufsadaa lana faraxumeeyaa lana dilaa saasay tahay walaalayaal marka ma ahan in la yaraysto la yiraahdo maxaa ka micnaa wiilal yaryar ayaa soo galiyay arrintii waa la xaliyay arrintan walaalayaal waa in la iftiimiyaa lagana hadlaa arrintan runtii wallahi marka aniga soo gaartay dareenkayga aad ayuu kacay waxaas aad uga sii xumahay oo aan mataqaana haddana aan live ku soo galay igu qasbay ah in arrintan dadka qaarkood ay dhayalsanayaan intay yiraahdaan sawirradooda laga saaro nimanka waxa suubiyay waa in la ceebeeyaa meel kasta ay joogaan sida ay mataqaana ciqaab adag la mariyaa lana yiraahdaa arrintan waad ku khaldantihiin dib dambe sidaysan ugu dhicin dulmiga dhibaatada abaaraha gaajada wadankeena maxaa keenay walaalayaal waa waxan ayaa maalin kasta dhacaya gabar yar oo walaasheen oo qurux badan ayaa intii la duubay oo la bahdilay oo video laga duubay oo wali la faafiyay ayaa niman waaweyn intay idaacadaha soo fadhiistaan ku leh arrintaas waa la xaliyo reer ahaan baa loo xaliyo hal iska dhaafo war anaga ujeedada maahan gabadhan kaliya waxaan ka hadlaynaa kumanaanka gabdhood ee dhibaatadan haysato billahi calaykum arrintan haddaanan shacabka Soomaaliyeed aysan ka dagaalamin ay maanta ka dhiidhinin walaalayaal waa arrin sii soconaysa foolxun weey dadkan hadda arrintaas suubiyay waxa la ogaaday cid ay yihiin meeshay ka yimaadeen arrinta markay reer hebel gaartay ay qabiil hebel gaartay ayaa marka xaleeyaha haddana arrintan social media laga saaro hal qariyo walaalayaal qofkan qabiil ma lahan sharafta iyo karaamada waa in la ilaaliyo waxa sawirataa gabadhaas xanuunkay dareemaysay toorey dhabarka laga galay la kufsaday ayada waxay ka mid tahay boqolaal gabdhood oo la qariyay oo aan la sheegin haddaba dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo dumarka Soomaaliyeed waa in laga hortagaa ragga Soomaaliyeed waxa la joogaa xilliga ay garwaaqsan lahaayeen xilligii waxay joogaan ay gabdhooda ixtiraam lahaayeen gabdhaha waa la furaa waa la dilaa waa la kufsadaa xaqiiqi jirta weey ma ahan in la iska indha tiro oo inta gabdhaha markaas la xumeeyo oo wax xun lagu sheego hadhowti la yiraahdo waa iska dumar weey waa haween weey walaalayaal dadka Soomaalida qaarkood waxa dhacday intuu qof dilay goboladaas hadda filkaas ka dhacay ayaa waxa laga sheegaa nin jareer ah Soomaalida dadka jareerta yiraahdaan ama dadkeena Soomaalida ee timaha adag ayaa waxa dilay nin baa dilay mindi ku dhuftay halo xabad ku dhuftay warrinkii maxaa u dishay waxa macnaha nin dilay macnaha qof dilay waxaan dilay jareer baan dilay heerkaas ay naga maraysaa walaalayaal waxay naga maraysaa in anaga dadkii quursano sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noogu naxariisanaya haddii anaga aan dadkeenu u naxariisan weyno midda kale walaalayaal haddaanan dulmiga laga qaylin laga hadlin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu badbaadiyaa oo mataqaanaa wax ka qabta dadka dulmiga iska reeba dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed waa inaan ka dagaalanaa oo ka dhidhinaa dulmiga ka dhidhinaa oo ka dagaalanaa maxaa yeelay walaalayaal maanta gabadha yarista ah ee la kufsaday ee la faraxumeeyay ee wali social media la soo dhigay nimankii arrintaas suubiyay in la difaaco xaq uma lahan ciday rabaan ha ahaadaan ciday rabaan ha ka dhashaan marka waxay calaamad u tahay gabadhaas ay maanta ay furka ka qaaday dhibaatada inay tahay dhibaato jirta Soomaaliya walaalayaal gabdhaha waa la xoogaa waa la kufsadaa ciyaalka waa la faraxumeeyaa laakiin waa la qariyaa lagama hadlo maxaa yeelay gabadha markay hadasho tiraado waa la faraxumeeyay naamus baa la leeyahay balaayo kugu dhacday hana ceebaynin ma haddii dhibaatada la qariyana waa ay qarsoomaysaa marka walaalayaal waxaan u baahanahay billahi calaykum inaan cod dheer iyo cod gaaban aanu ku hadalno arrintan ka dhiidhino haddii aanan saas suubinin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu na ciqaabaya ciqaabta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haday timaadana kan xumaanta kali suubiyay kuma ekaanayso
إلهي وحليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واركبق فتن أنا أسيبين كوا سوبيه أو كليا ما أنت إن وحاهدنا عجيب أنتو صوّع عسوي هذا وحاولوا الآن سوشيال ميديا وحبك فانسنين وأنا من سمارت فون قاطي كاميرا قاطي أو حمان أبريري أو أبريري إلى قبل أسبه دلان إلهي هبه دلان مدة كله وعقولي رير أهم بالله حبي ما أنت مال أرنتاس لقات كينسن كرم أهم dulmiga walaalayaal waa inaan ka hortagnaa waa inaan ka dhiidhinaa maxaa yeelay maanta haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan hadlin uu la socda arrintooda dhibaatadanna waxaa keensatay inaan annaga ka aamusno oo la qariyo waxay keensatay inaan maanta bannaanka lasoo dhigo haddaba gabadhan hadda la kufsaday ujeedka ma ahan ujeedka wuxuu yahay in arrintan aan laga harin oo laga hadlo gabdhaheeni qaar waxaa weeye sacuudiga laga iibinayaa oo mataqaanaa waxaa la geenayaa addoonsi cusub oo casri ayaa la gelinayaa xuquuq ma lahan maxaa yeelay raggii Soomaaliyeed ayaa dayacay way kufsanayaan way dilayaan marka carabahaba loo qaatayba oo xoogaa casiir iyo wax iska helayaan Soomaali waa u jeeday gabadhii dharka ka siibeen oo ay dileen oo bah dileen wallahi qalbigaygu wuu gubanaya wallahi markaan arkay anigoo mataqaanaa meel u socdo jid maraya ayaa arrintaas soo gaartay midda kale waxa la yiri 20 bari ka hor ayay dhacday 20 bari ka hor haday dhacday maxaa hadda soo galiyay social media maxaa soo galiyay soo ma ahan dad xumaan u dan la soo ma ahan soo ma ahan arrintan arrin laga soo fikiray oo laga soo shaqeeyay ma ahan marka Soomaaliyay raggi way baabeen dumarkiina dulmi baad ku haysaan dumarka waa in dulmiga laga daaya gabdhaha waa in si fiican loo dhaqa waa in caruurta loo koriya yani xuquuqda dumarka ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuquuq ayuu siiyay wuu wanaajiyay wastawsuu binnisaa'i khayra abu nabiga sala allahu calayhi wasalam leeyahay dumarka khayr kula u dardaarma oo wanaajiya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kiina idinku khayr badan waa kan dumarka ugu khayr badan waa inaad dumarka loo naxariistaa waa hooyada war qof walba ma hooyadiis buu raalli oga yahay insaan loo galo ma walaashaabaa raalli saas oga tahay waa maya haddaba marka walaalkayga muslimka aho ilaahay ka cabsano oo aan iska dayno difaaca aan difaacayna xumaanta qaar baa xataa waxay ku difaacayaan oo hadhowti ku mucaaradayaan gobol hebel oo gobolkeeni hebel ahaa ayaa arrintan ka dhacday markayaan la faafinin yaan la sheegin war arrintan gobol ma lahan qabiil ma lahan weji ma lahan walaalka hadduu suubiyo waa inaa sharciga la waafajiyaa waa in sharciga la waafajiyaa oo mataqaanaa xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu oofiyaa arrintaana arrin la dhayalsan kara ma jirto marka waxaan ugu baaqayaa saxaafadda Soomaalida ummadda dhan inay arrintan ka dagaalamaan oo ay bayaaniyaan oo ay cadeeyaan maxaa yeelay walaalayaal maanta haddaanan arrintan laga dhigin oo laga hadlin wallahi dad ma jirayso nolol ma jirayso wali gobolkii hadda ka dhacday abaar ayaa ka dhacday abaar xun ayaa ka jirta abaartaas waa cuqubo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timaaday maxaa yeelay har iyo habeen qof masaakiin ayaa lagu dulmiyaa waxaa la dilaa dad dhibaataysan ayaa la dilaa sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad uga rajaynaynaa sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis uga rajaynaynaa annagii oo isdulminayna oo isdilayna laa xawla walaa quwata ilaa billah laa ilaaha ila allah walaalayaal ujeedka ma ahan gabadhaas ujeedka waxa weeye waa kumanaanka gabdhood ee dhibaatadan ku jira waa in laga hortagaa wali gaar ahaan waa in barnaamijyo fiican laga suubiyaa maxaa yeelay gabadha Soomaaliyeed meel kasta ku dulman tahay kuwii qurbaha joogay caruur bay la balanbalayaan kuwii wadanka joogay raggi balwad iyo jaad baa dilay 26 sano waxay Soomaali ka deglaadahay waa rag dadka dhibaataysan waxa wax tara waxa sadaqada bixiya waxa masaakiinta caawiya waa dumarku waa laf dhabarka lawla aysan dumarka Soomaaliyeed jiri lahayn Soomaaliya inta ka hartay lama arkeen marka waxaan leenahay walaalayaal waa dib waan ugu filan yahay kama qarsan karna indhaha in dumarka la dulmiyo gabadhaana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu sahlo waan ogahay walaalayaal wadanka aan joogno ama dadka wadamada reer galbeedka ku nool gabadha marka la kufsado dhakhaatiir ayaa loo geeyaa maskaxiyan ayaa loola hadlaa Soomaaliya kii kufsaday ayaa la siinaya waxaa laga yaabaa kuwii kufsaday midkood in la siiyo la yiraahdo kaasaan ku siinay gabadhaas ma nolol baa u hartay waa may uma harin qofku waa in damiirkiisa ilaaliya xaqiiqatan annaga xuquuq nolosha bilaadanka ma fahansanin markaan islaamnimadii ka fogaanay oo diinta ilaahay ka fogaanay ayaa waxaan ku xadgudubnay xuquuqda bilaadanka ayaan ku xadgudubnay walidaalika qofka bilaadanka wuxuu xaq u leeyahay nolol fiican ayuu xaq u leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala zinadu wuu xarimay qofka zinaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubo ayuu ka ratibay ka waran qof la xoogay ka waran
oo weli geesinimo iyo sharaftay muujisay gabadhaas waxaan leenahay ilaah khayr ha siiyo waxay tiri mindida igeli intaan kuu seexan lahaa oo mataqaanaa dhulka kuu dhigi lahaa gabadhaas waxay rabeenba ku suubiye siday rabeenba u gale maxaanu ka qaban karnaa su-aasha jirta waxay tahay gabdhaha soo socda iyo gabdhaha hadda dulman saacaddan aynala hadlayo xaqiiq waxa ah in gabar la fara xumaynayo waxaa xaqiiq ah in gabar la dilayo waxaa xaqiiq ah in hooyo soomaaliyeed maanta laga oysinayo waxaa xaqiiq ah in caruurtooda laga qaadanayo maalmaha xataa waad u jeedeen social media waxaa marayay hooyooyin badan oo oynaya oo cabaadaya oo mataqaanaa ilmada sii daynaya sababta maxay tahay rag baa dulmiyey inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun walaalayaal ummadaha kale dadkooda iyo gabdhahooda way ilaashadaan waxaan la yaabay hadda dubay haddaad tagtid waxaa ka shaqaysta bangaladesh iyo hindi iyo bakistan ayaa ka shaqaysata hal gabar oo bangaladesh ah ama hindi ah ama bakistan oo shaqaynaysa ma arkaysid halka gabdhaha soomaaliyeed ay suuqa dahabka qoraxda fadhiyaan ay dhaxanta fadhiyaan ay sambuuska iibinayaan aaway raggoodii markaad tagtid magaalada soomaaliya tuulooyinkaad tagtid waxa shaaha iibinaya waxa maqaayadda siraadaya waxa hilibka qalaya waa hooyo soomaaliyeed raggii aaway way qayilayaan marka waxaa dhacday dadka hadday ka burburaan mujtamaca ka burburaan raginimadii ka burburaan way baaba'ayaan halka waxaa fiirisaa wadamada aan joogno hadda waxa safraya waxa balanbalaya waxa ordaya waa gabar soomaaliyeed raggii kale dhan gabdhahooda way asturteen ayaka ayaa difaacaya ayakaa u hor ordaya ayakaa u shaqaynaya raggeeni jaad ayay cunayaan kii aan jaad cunin oo wadaadka sheeganaya masaajid ku dhex fadhiya waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxaan dantiisa ahayn 24 saac sheekh hebel baan soo dhawaynayaa kan baa la yidhi aljaziiraan daawanaya kii kale wuxuu ku maqan yahay fadhi ku dir raggu waxba isma dhaamaan xaqiiqatan ragga marka laga hadlo mid wadaada iyo mid aan wadaad ahayn iyo mid caadi ah iyo mid jaad cuna kulligood waa isku wada mid qaar tay bay xirteen siyaasad bay galeen marka dumarka soomaaliyeed waa inay tashtaan xilligii waxaa la joogaa ay furka tuuri lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen dulmi intaa noogu filan haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno oo aan diinteena usoo laabanno dhibkaanna waxaa noo keenaya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka tagnay allahu akbar marka aan diinta usoo laabanno ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo gargaari doonaa waxaan ka xumahay inaan codkayga kor u qaado inaan dareenkayga kor u qaado sababto ah walaalayaal wallahi way gubaysaa wallahi way dhibaysaa maxaa yeelay marka aad fiirisid hadda waddanka la yidhaha norway caruurtii dhan waa la qaatay maalinkay ugu yartahay waxaa la qaataa intaasoo caruur ah ayaan dhawed waxaa lii sheegay tirada waxay maraysaa 5,000 oo caruur ayaa maqan aabbihii hooyadii dhalay ayaa iskhilaafay hooyadii markii la dulmiyey caruurtii ayaa dayacmatay caruurtii markay dayacmatay waa laga faa'iidaystay waa la qaatay marka walaalayaal waa inaan mujtamaca markuu yani rabo inuu dad noqdo waa inuu asaga wax iskugu filnaada noqdaa haddii kale walaalayaal arrintan ma soconayso waxa weeye kolba mid baa la siibanaya waxaad arkayseen ayaan dhawid waxaa qaylinayay gabdho lahaa ma dhibaan baa nahay oo gabooyaan nahay oo guurka ka hadlay maxaa keenay in anaga cunsuriyeyno wadaadka wuxuu ku leeyahay dadka waa isku mid ilaahay agtiisa isku mid baa laga yahay gabdhaha la guursada asaga ma guursanayo waa inaa ficil lala yimaadaa markaa masaajidka adiga ka hadashid oo aad tirahdid dadka waa isku mid cunsurinimada hala joojiyo dee wiilkaada waa inaad u guurisaa waa inaad adigu guursataa macquul maahan inaad tiraahdid ina akramakum cinda allahi atqaakum dadka ilaahay waa isku mid cunsurinimada hala joojiyo hadhowtina markaa dhahdid ka baxdid war ayay ahayd war saas ahayd maahan walaalayaal gabdhaheen waxaa guursaday jamaican waxaa guursaday nigerian waxaa guursaday caddaan waxaa guursaday greenland waddanka la yidhaahdo waa kulli dadkii dhan waa guursadeen maxaa diiday gabar soomaaliya oo sharaf leh oo ahludiin ah inaan guursano midda kale nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay qof ka fadli badan ma jiro carab ma dhaafto maxay tahay macnaheeda marka walaalayaal waa in ilaahay aan ka cabsana oo diinta run ka sheegna haddii aanan annaga arrintaanan suubinin khalad ayaan ku dhacaynaa marka waxaan dhibaatada noo keentay isdabakeenka noo keentay abaarta noo keentay qaxa noo keentay waa wax annaga kasbanay ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir yacni musiibada maxay tahay marka ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum haddii la rabo in dhibaatada laga baxo waa inaan annaga ka bilownaa waa in la joojiyaa cunsurinimada shacabka soomaaliyeed cid ka cunsuriyeysan ma jiro midgaan bay leeyihiin jareer bay leeyihiin elay bay leeyihiin xataa ayakii dhexdoodii ayaa isyasay maxay tahay waxaas marka ma waxaa ka rajaynaysaa in adduunka adigana si fiican lagugu soo dhaweeyo waa maya marka dhibaatada walaalayaal waxaan uga bixi karnaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo laabano
gabagabadii waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed dhibaatada laga daayo xuquuqdooda ha loo doodo ilaahay ha looga cabsado gabadhan la faro xumeeyayna ayada ujeedka ma ahan in maanta laga hadlana waa arrin fiican shacabka Soomaaliyeed ay dareenkooda muujiyaan waa arrin fiican waxaan kaloo eedeynaynaa oo cambaaraynaynaa dadka raba inay arrintan daboolaan ay qariyaan oo ay ka dhigaan wax aan waxba ka jirin walaalayaal ma ahan arrinta xaqiiqatan arrintan waa in laga hadla waa in banaanka la soo dhigaa waa in maalin kasta la sheegaa gabdhaha la kufsado waa in kuwa guriga lagu faro xumeeyo xataa qaar waxaa jira abtiyaashood adeeradood walaalahood ay faro xumeeyaan laakiin lagama hadlo waa la qariyaa waxaa la yidhaahdaa Soomaalida yani wallahi inaan been sheegin aniga xaqiiq waxaan maqlay lay sheegay gabar abtigeed isku dayay inuu faro xumeeyo waa abtigeed hooyadeed la dhashay waa xaqiiq jirta gabadhii waxay hooyadeed bay u sheegtay naa bela kugu dhacday aamus abtiga walaalkii ha ceebeen waxaan yaa laga maqlin qofka noocaas oo kale walaalima qof la soo dhaweystaa ma qof la qariya waa ina qofkaas kale la ceebay abti ma lahan walaal ma lahan arxan ma lahan waxaa kaloo la sheegay oo marqaati oo cad oo jirta mid isku dayay gabadh wiilku adeerkiis dhalay inuu faro xumeeyo waa nin wadaad wax lagu leeyahay wuxuu sheegtaa diin iyo ahl buu sheegtaa waa xaqiiq dhacday magaalada aan joogay ka dhacday wallahi oo billahi wa tallahi telefoon baa lagu sheegay markii gabadhii wiilka dhashay ay tiri la hadal dadkii oo istiri arrinta ka hadal waxa la yidhi aamus habeen shibkada mar dambe waxba ku darsan ninkan ha sii deynin waxaas ma wax la qarsan karaa marka walaalayaal waxa loo baahay inaan iska dhaafno oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsano oo aan dhibaatadan ka hortagno haddii aanan dadkeena ka hortagin berritol annagana qabsanaysaa marka qof walba waxaan ku leeyahay Soomaali xilligii waa la dhaaf wax la qarin jiray abti la qarin jiray walaal la qarin jiray waxa loo baahay inaan waxba qarinin oo runtii isu sheegno gabagabadii gunahan dadkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa dhibaatada inuu naga qaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu na caafiyo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadeena u naxariisto in abaarta naga qaado haddii aan rabno inaan dhibaato ka baxno walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu la soo laabano haddii aan rabno dhibaato inaan ka baxno waa inaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali gelinaa maxaa yeelay marka aan ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali gelino ilaahay raali ayuu naga noqonayaa markaan ilaahay ka fogaanana ilaahay subxaanahu wa ta'aala raxmadiisa way naga sii fogaanaysaa saasay tahayna ilaahay wax badan ayuu naga cafinayaa marka waxaan leeyahay walaalayaal gacmaha isqabsano shacabkeena aan u gargaarno gaar ahaan dadka mataqaanaa mayeeraanka ah dumarka oo la dhibayo dadkan la yasayo la kala qaybinayo 4.5 kan la leeyahay waxaas dhan walaalayaal aan gacanta ku tuurno ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin sharfo wa axsana allahu ilaykum aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina iyo daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabdhaha waa la furaa waa la dilaa waa la kufsadaa xaqiiqi jirta wey ma ahan in la iska indha tiro oo inta gabdhaha markaas la xumeeyo oo wax xun lagu sheego hadhowti la yiraahdo waa iska dumar wey waa haween wey walaalayaal dadka Soomaalida qaarkood waxa dhacday intuu qof dilay goboladaas hadda filkaas ka dhacay ayaa waxa laga sheegaa nin jareer ah Soomaalida dadka jareerta yiraahdaan ama dadkeena Soomaalida ee timaha adag ayaa waxa dilay nin baa dilay mindi ku dhuftay halo xabad ku dhuftay warninkii maxaa u dishay waxa macnaha nin dilay macnaha qof dilay waxaan dilay jareer baan dilay heerkaas ay naga maraysaa walaalayaal waxay naga maraysaa in anaga dadkii quursano sidoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu naxariisanaya haddii anaga aan dadkeena u naxariisan weyno midda kale walaalayaal haddaanan dulmiga laga qaylin laga hadlin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu badbaadiyaa oo mataqaanaa wax ka qabtaa dadka dulmiga iska reeba dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed waa inaan ka dagaalanaa oo ka dhidhinaa dulmiga ka dhidhinaa oo ka dagaalanaa maxaa yeelay walaalayaal maanta gabadha yarista ah ee la kufsaday ee la faro xumeeyay ee wali social media la soo dhigay nimankii arrintaas suubiyay in la difaaco xaq uma lahan ciday rabaan ha ahaadaan ciday rabaan ha ka dhashaan marka waxay calaamad u tahay gabadhaas ay maanta ay furka ka qaaday dhibaatada inay tahay dhibaato jirta Soomaaliya walaalayaal gabdhaha waa la xoogaa waa la kufsadaa ciyaalka waa la faro xumeeyaa laakiin waa la qariyaa lagama hadlo maxaa yeelay gabadha markay hadasho tiraado wali farxmay naamus baa leeyahay balaayo kugu dhacday hana caabaynin ma hadii dhibaatada la qariyana waa ay qarsoomaysaa marka walaalayaal waxa u baahanahay billahi calaykum ina cod dheer iyo cod gaaban aanu ku hadalno arrintan ka dhiidhino hadii aanan saas suubinin ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ciqaabaya ciqaabta ilaahay subxaanahu wa ta'aala haday timaadana kan xumaanta kali suubiyay kuma ekaanayso إلهي وحليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واركبق فتنة أن أسيبين كوسوبيه أو كليا ما أنت
waxaa haddana cajiib ah intuu soo waco asagu yidhaahdo waa wiilal aan social media waxba ka fahansaneen waa niman smartphone qaatay camera qaatay oo xumaan u bareeray inay gabadhaas bahdilaan ilaahay ha bahdile midda kale wuxuu ku leeyahay reer ahaan baa loo xabeeyey maanta meel arrintaas laga adkaysan karo ma ahan dulmiga walaalayaal waa inaan ka hortagnaa waa inaan ka dhiidhinnaa maxaa yeelay maanta haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan hadlin uu la socda arrintooda dhibaatadanna waxaa keensatay inaan annaga ka aamusno oo la qariyo waxay keensatay inaan maanta bannaanka lasoo dhigo haddaba gabadhan hadda la kufsaday ujeedka ma ahan ujeedka wuxuu yahay in arrintan aan laga harin oo laga hadlo gabdhaheeni qaar waxaa weeye sacuudiga laga iibinayaa oo mataqaanaa waxaa la geenayaa addoonsi cusub oo casri ayaa la gelinayaa xuquuq ma lahan maxaa yeelay raggii soomaaliyeed ayaa dayacay way kufsanayaan way dilayaan marka carabahaba loo qaatay aan ka cabsanno oo aan diinteena usoo laabanno dhibkanna waxaa noo keenaya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka tagnay allahu akbar marka aan diinta usoo laabanno ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo gargaari doonaa waxaan ka xumahay inaan codkayga kor u qaado inaan dareenkayga kor u qaado sababto ah walaalayaal wallahi way igubaysaa wallahi way idhibaysaa maxaa yeelay marka aad fiirisid hadda waddanka la yidhaha norway carruurtii dhan waa la qaatay maalinkay ugu yartahay waxaa la qaataa intaasoo carruur ah ayaan dhawed waxaa lii sheegay tirada waxay maraysaa 5,000 oo carruur ayaa maqan aabbihii hooyadii dhalay ayaa iskhilaafay hooyadii markii la dulmiyey carruurtii ayaa dayacmatay carruurtii markay dayacmatay waa laga faa'iidaysta waa la qaatay marka walaalayaal waa inaan mujtamaca markuu yacni rabo inuu dad noqdo waa inuu asaga wax iskugu filnaada noqdaa haddii kale walaalayaal arrintan ma soconayso waxa weeye kolba mid baa la siibanaya waxaad arkayseen ayaan dhawid waxaa qaylinayay gabdho lahaa ma dhibaan baa nahay oo gabooyaa nahay oo guurka ka hadlay maxaa keenay in anaga cunsuriyeyno wadaadka wuxuu ku leeyahay dadka waa isku mid ilaahay agtiisa isku mid baa laga yahay gabdhaha la guursada asaga ma guursanayo waa inaa ficil lala yimaadaa markaa masaajidka adiga ka hadashid oo aad tiraahdi dadka waa isku mid cunsurinimada hala joojiyo dee wiilkaada waa inaad u guurisaa waa inaad adigu guursataa macquul maahan inaad tiraahdid ina akramakum cinda allahi atqaakum dadka ilaahay waa isku mid cunsurinimada hala joojiyo hadhowtina markaa dhahdid ka baxdid war ayay ahayd war saas ahayd maahan walaalayaal gabdhaheen waxaa guursaday jamaican waxaa guursaday nigerian waxaa guursaday caddaan waxaa guursaday greenland waddanka la yidhaahdo waa kulli dadkii dhan waa guursadeen maxaa diiday gabar soomaaliya oo sharaf leh oo ahluddiin ah inaan guursano midda kale nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay qof ka fadli badan ma jiro carab ma dhaafto maxay tahay macnaheeda marka walaalayaal waa in ilaahay aan ka cabsana oo diinta run ka sheegna haddii aanan annaga arrintaanan suubinin khalad ayaan ku dhacaynaa marka waxaan dhibaatada noo keentay isdabakeenka noo keentay abaarta noo keentay qaxa noo keentay waa wax annaga kasbanay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir yacni musiibada maxay tahay marka ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum haddii la rabo in dhibaatada laga baxo waa inaan annaga ka bilownaa waa in la joojiyaa cunsurinimada shacabka soomaaliyeed cid ka cunsuriyeysan ma jiro midgaan bay leeyihiin jareer bay leeyihiin elay bay leeyihiin xataa ayakii dhexdoodii ayaa isyasay maxay tahay waxaas marka ma waxaa ka rajaynaysaa in adduunka adigana si fiican lagugu soo dhoweeyo waa maya marka dhibaatada walaalayaal waxaan uga bixi karnaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo laabano gabagabadii waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeed dhibaatada ha laga daayo xuquuqdooda ha loo doodo ilaahay ha looga cabsado gabadhan la fara xumeeyeyna ayada ujeedka ma ahan in maanta laga hadlana waa arrin fiican shacabka soomaaliyeedna ay dareenkooda muujiyaan waa arrin fiican waxaan kaloo eedaynaynaa oo cambaaraynaynaa dadka raba inay arrintan daboolaan oo ay qariyaan oo ay ka dhigaan wax aan waxba ka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعليك شرفت لكل أنتي ونكسنه وعن ملك استاذ دون كجوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبينا يدنبي والدكنا دعفو برنامج كان وحان ربعنا وقاه الله دعضادا نحدنتا له معلمهن سوق الشيء ورباهنتا دعضادا ولا ليال سيدة دوكتهين وحي كدعضي ميل كميدة صوماليا وحانا فالحون لو جيستي قبر صوماليات وأنا وحبا قلب سنين قبر داس ولا ليال دنبي وين أيا لقا قلي waxaase naxdin leh isla markii arrintan ay miidiyada soo gashay inay dad miidiyada ka hadlaan oo ay yaraystaan oo ay yidhaahdaan arrintan waxaa suubiyey wiilal yaryar oo aanan mataqaanaa fahansanayn social mediaha oo video iska duubay arrintan ayaa waxay tahay arrin aan loo dulqaadan karin waxaanse ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa inuu arrintan bannaanka soo dhigay
maxaa yeelay walaaleel dulmiga waxaa lagu hayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma ahan arrintan arrin cusub ma ahan maanta waa la duubay tan oo suuqa ay soo gashay laakiin maalin kasta iyo habeen kasta gabdho Soomaaliyeed ayaa la kufsadaa lana faraxumeeyaa lana dilaa saasay tahay walaaleel marka ma ahan in la yaraysto la yiraahdo maxaa ka micnaa wiilal yaryar ayaa soo galiyay arrintii waa la xaliyay arrintan walaaleel waa in la iftiimiyaa lagana hadlaa arrintan runtii wallahi markii aniga soo gaartay dareenkayga aad ayuu kacay waxaas aad uga sii xumahay oo aan ma taqaana haddana aan live ku soo galay ugu qasbay ah in arrintan dadka qaarkood ay dhayalsanayaan intay yiraahdaan sawirradooda laga saaro nimanka waxaa suubiyay waa in la ceebeeyaa meel kasta ay joogaan sida ay ma taqaana ciqaab adag la mariyaa lana yiraahdaa arrintan waad ku khaldantihiin dib dambe sidaysan ugu dhicin dulmiga dhibaatada abaaraha gaajada wadankeena maxaa keenay walaalayaal waa waxaan ayaa maalin kasta dhacaya gabar yar oo walaasheena oo qurux badan ayaa intii la duubay oo la bahdilay oo video laga duubay oo wali la faafiyay ayaa niman waaweyn intay idaacadaha soo fadhiistaan ku leh arrintaas waa la xaliyo reer ahaan baa loo xaliyo hal iska dhaafo war anaga ujeedada maahan gabadhan kaliya waxaanu ka hadlaynaa kumanaanka gabdhood ay dhibaatadan haysato billaahi calaykum arrintan haddaanan shacabka Soomaaliyeed aysan ka dagaalamin ay maanta ka dhiidhinin walaalayaal waa arrin sii soconaysa foolxun wey dadkan hadda arrintan suubiyay waxa la ogaaday cid ay yihiin meeshay ka yimaadeen arrintan markay reer hebel gaartay ay qabiil hebel gaartay ayaa marka xaleeyaha haddana arrintan social media laga saaro hal qariyo walaalayaal qofkan qabiil ma lahan sharafta iyo karaamada waa in la ilaaliyo waxa sawirataa gabadhaas xanuunkay dareemaysay toorey dhabarka laga galiyay la kufsaday ayada waxay ka mid tahay boqolaal gabdhood oo la qariyay oo aan la sheegin haddaba dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo dumarka Soomaaliyeed waa in laga hortagaa ragga Soomaaliyeed waxa la joogaa xilliga ay garwaaqsan lahaayeen xilligii waxay joogaan ay gabdhooda ixtiraam waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku sahlo waan ogahay walaalayaal wadanka aan joogno ama dadka wadamada reer galbeedka ku nool gabadha marka la kufsado dhakhaatiir ayaa loo geeyaa maskaxiyan ayaa loola hadlaa Soomaaliya kii kufsaday ayaa la siinaya waxaa laga yaabaa kuwii kufsaday midkood in la siiyo la yiraahdo kaasaan ku siinay gabadhaas ma nolol baa u hartay waa may uma harin qofku waa in damiirkiisa ilaaliya xaqiiqatan annaga xuquuq nolosha bil aadanka ma fahansanin markaan islaamnimadii ka fogaanay oo diinta Ilaahay ka fogaanay ayaa waxaan ku xadgudubnay xuquuqda bil aadanka ayaan ku xadgudubnay walidaalika qofka bil aadanka wuxuu xaq u leeyahay nolol fiican ayuu xaq u leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala zinadu wuu xarimay qofka zinaysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uquba ayuu ka ratibay ka waran qof la xoogay ka waran oo wali geesinimo iyo sharaftay muujisay gabadhaas waxaan leenahay Ilaahay khayr ha siiyo waxay tiri mindida igali intaan ku seexan lahaa oo ma taqaana dhulka ku dhigi lahaa gabadhaas waxay rabeen ba ku suubiye siday rabeen ba u gale maxaanu ka qaban karnaa su'aasha jirta waxay tahay gabdhaha soo socda ee gabdhaha hadda dulman saacadan ayna la hadlayo xaqiiq waxa ay in gabar la faraxumaynayo waxa xaqiiqa in gabar la dilayo waxa xaqiiqa in hooyo Soomaaliyeed maanta laga oysiinayo waxa xaqiiqa in caruurtooda laga qaadanayo maalmaha xataa waad u jeedeen social media waxa marayay hooyooyin badan oo oynaya oo cabaadaya oo ma taqaana ilmada sii deynaya sababtu maxay tahay rag baa dulmiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un walaalayaal ummadaha kale dadkooda iyo gabdhahooda way ilaashadaan waxaan la yaabay hadda Dubai hadda tagtid waxa ka shaqeysta Bangladesh iyo Hindi iyo Pakistan ayaa ka shaqeysata hal gabar oo Bangladesh ah ama Hindi ama Pakistan oo shaqeynaysa ma arkaysid halka gabdhaha Soomaaliyeed ay suuqa dahabka qoraxda fadhiyaan ay dhaxanta fadhiyaan ay sambuuska iibinayaan aaway ragoodi markaa tagtid magaalada Soomaaliya tuulooyinka tagtid waxa shaaha iibinaya waxa maqaayada siraadaya waxa hilibka qalaya waa hooyo Soomaaliyeed raggi aaway way qayilayaan marka waxa dhacday dadka haday ka burburaan mujtamaca ka burburaan ragnimadii ka burburaan way baaba'ayaan halka waxa fiirisaa wadamada aan joogno hadda waxa safraya waxa balanbalaya waxa ordaya waa gabar Soomaaliyeed raggi kala dhan gabdhahooda way asturteen ayaka ayaa difaacaya ayaka u hor ordaya ayaka u shaqeynaya raggeeni jaad ayay cunayaan kii aan jaad cunina wadaadka sheeganaya masaajid ku dhex fadhiya waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxaan dantiisa ahayn 24 saac sheekh hebel baan soo dhaweynaya kan baa la yiri aljazeera daawanaya kii kale wuxuu ku maqan yahay fadhi ku dir ورق وحبي اسمه دامان حقيقة رق مركل لقاها الله مد ودادة مد أن وداد أهين مد عادي مد جاد عنا كل جود أسكوده مد
qaar tay bay xirteen siyaasad bay galeen marka dumarka Soomaaliyeed waa inay tashtaan xilligii waxa la joogaa ay furka tuuri lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen dulmi intaan ugu filan haddaba walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xoogaa casiir iyo wax iska helayaan Soomaaliya waa u jeeday gabadhii dharka ka siibeen oo ay dileen oo ay bahdileen wallahi qalbigayga wuu gubanaya wallahi markaan arkay anigoo mataqaana meel u socdo jid maraya ayay arrintaa soo gaartay midda kale waxa la yidhi 20 beri ka hor ayay dhacday 20 beri ka hor hadday dhacday maxaa hadda soo geliyay social media maxaa soo geliyay soo ma ahan dad xumaan u dan la soo ma ahan soo ma ahan arrintan arrin laga soo fikiray oo laga soo shaqeeyay ma ahan marka Soomaaliyay raggi way baabeen dumarkiina dulmi baad ku haysaan dumarka waa in dulmiga laga daaya gabdhaha waa in si fiican loo dhaqa waa in caruurta loo koriya yani xuquuqda dumarka ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuq ayuu siiyey wuu wanaajiyey wastawsuu binnisaa'i khayra buu nabiga sala allahu calayhi wasalam leeyahay dumarka khayr kula u dardaarma oo wanaajiya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kiina idinku khayr badan waa kan dumarka ugu khayr badan waa inaad dumarka loo naxariistaa waa hooyada war qof walba ma hooyadiis buu raalli oga yahay insaan loo galo ma walaashaabaa raalli saas oga tahay waa maya haddaba marka walaalkayga muslimka ahow ilaahay ka cabsano oo aan iska dayno difaaca aan difaacayna xumaanta qaar baa xataa waxay ku difaacayaan oo hadhowti ku mucaaradayaan gobol hebel oo gobolkeeni hebel ahaa ayaa arrintan ka dhacday markayaan la faafinin yaan la sheegin war arrintan gobol ma lahan qabiil ma lahan weji ma lahan walaalka hadduu suubiyo waa inaa sharciga la waafajiyaa waa in sharciga la waafajiyaa oo mataqaanaa xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu oofiyaa arrintaana arrin la dhayalsan kara ma jirto marka waxaan ugu baaqayaa saxaafadda Soomaalida ummadda dhan inay arrintan ka dagaalamaan oo ay bayaaniyaan oo ay caddeeyaan maxaa yeelay walaalayaal maanta haddaanan arrintan laga dhigdhin oo laga hadlin wallahi dad ma jirayso nolol ma jirayso weli gobolkii hadda ka dhacday abaar ayaa ka dhacday abaar xun ayaa ka jirta abaartaas waa cuqubo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timaaday maxaa yeelay har iyo habeen qof masaakiin ayaa lagu dulmiyaa waxaa la dilaa dad dhibaataysan ayaa la dilaa sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad uga rajaynaynaa sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis uga rajaynaynaa annagii oo isdulminayna oo isdilayna laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah walaalayaal ujeedka ma ahan gabadhaas ujeedka waxa weeye waa kumanaanka gabdhood ee dhibaatadan ku jira waa in laga hortagaa weli gaar ahaan waa in barnaamijyo fiican laga suubiyaa maxaa yeelay gabadha Soomaaliyeed meel kasta ku dulman tahay kuwii qurbaha joogay caruur bay la balanbalayaan kuwii wadanka joogay raggi balwad iyo jaad baa dilay 26 sano waxay Soomaali ka deglaadahay waa rag dadka dhibaataysan waxa waxtara waxa sadaqada bixiya waxa masaakiinta caawiya waa dumarku waa laf dhabarka lawla aysan dumarka Soomaaliyeed jiri lahayn Soomaaliya inta ka hartay lama arkeen marka waxaan leenahay walaalayaal waa dhib waa noogu filan yahay kama qarsan karna indhaha in dumarka la dulmiyo